عليكم داوديال meel walba joogtaan oo markale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV oo anigoo leeyahay Bidar Caawiye waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka walaal la soo wadaagay guul uu ka gaaray New Year Resolution iyo qodob kale oo ah qabowgii ayaa bilowday wadamada reer galbeedka ama wadamada qurbaha meel walba joogna qabowgii ayaa bilowday maadaama qabowgu uu bilowday qofka bini'aadanka in uu sii saaciidiyo fitamiinadiisa fitamiinka aan ku sheegayo ma ahan kiniiniga hair volume kali ma ahan waxa sii saaciidin doontaa فيتامين دي waa inuu badsadaa qofka maadaama qoraxdii aan arkaynin muddo 4 bilood ilaa 5 bilood qorax la arkaynin فيتامين دي muhiim ayuu ku yahay inaad isticmaasho فيتامين دي waa kiniiniga qoraxda laga sameeyay la soco barnaamijkooda dhamaystiran assalamu alaykum daawadayaal meel walba joogtaan oo markale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV oo anigoo leeyahay Bidar Caawiye waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan haday tahay markii ugu horeysa soo booqato channelka Bidar Caawiye TV waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe like wixii fariin ama fikrada commentiga ay igala soo wadaagi kartaa waxaan rabaa intaan barnaamijka u guda gelin inaan kaaga digo ama kaaga dhiirigeliyo dhalinyarada isticmaasho jeelka hair foodka hadduu ilaahay ku rooyaa madoobeysada jilcisada kalarka ugu mustaqbalka dheer wax ay u dhimi doonaan madaxaaga raadi wixii madaxaaga waxa u dhimeenin iska ilaali shaambooyinka kiimikada leh raadso shaambooyinka dabiiciga ah nafaqay tintaada adigoo isticmaalayo waxyaalo dabiici ah markaan ku leeyahay waxyaalo dabiici ah waxa kamid ah ukunta kalluunka qudaarta ayu noocyada kala juuska cabitaanada ah oo laga sameeyo liinta la miiray lima beelmada hada helaysid raadi qorax annaga qoraxda ayaan laga iibiyaa waxaan rabaa inaan barnaamijka u guda galo walaal kamid ah barbaarta gaashaaman ayaan la soo wadaagay sawiro qurux badan guul qurux badan before saan ayuu ahaa talow maxaa isleedahay after walaalkan wuxuu isticmaalay 3 caag oo saliid ah tii afraad ayuu hadda bilaabay rabaa 3 caag oo saliid ayuu isticmaalay walaalkan waxaa leenahay guul wacan ayaan leenahay dadaalka uu sameeyay waxaa kamid ah kaaga daran waxaan isticmaalay ayuu yiri 3 waqti 3 times ayaan isticmaalay saliida habeenkii aroortii iyo duhuradii ayaan isticmaalaya qofkii jaanis u haayo oo isticmaali kara 3 waqti ani laakiin liibaan Bidar Caawiye ahaan 2 waqti ayaa isticmaalaa laakiin halkaas waxa la yahay guul wacan maadaama 3 caag uu guul ku gaaray uuna sii wado dadka qaarkood markaan dhaho guul ayuu gaaray uu ka haray ma ahan guusha wuxuu ila soo wadaagay sawiradiisa before and after laakiin wadadii ayuu sii saaran yahay wuu sii wadaa ma uu joojin guushii hordhaceedii ayuu nala soo wadaagay mar walbana waxaan ku soo qaataa barnaamijka sawirada before and after la xishoonin intaana iska soo sawir inta badan wajiga soo u muuqan walaalaha si u soo kala horeeyeen ayaa u soo kala hormariyaa sawiro badan ayaa waxa li soo diray aad ayaan iga mahad celinayaa waxayna tahay dhiirigelin ku socoto barbaarta gaashaawan meel walba ay joogto sawirkaaga before and after alla xishoon soo dir adiga daawanay dhiirigelin uu ku yahay walaalaha kalena wuxuu u yahay dhiirigelin insha Allah walaalkaas wuu dadaal ayuu soo beeyay 3 times ayuu isticmaalay before soo ahaa waa soo aragtay talow wax kale muu isticmaalin waa New Year Resolution darmarolka iyo shalada sa u taqaano hadaan ku tuso waa New Year Resolution darmarolka iyo shalada ama garfeeda sa u taqaano inta ayuu isticmaalay guul fiican uu ka gaaray guusha uu ka gaaray walaalaha qaarkood markay guusha gaaraan hatta qofka haduu ku soo diro sawir macquul ah marka fiiriso before and after dadka aad la wadaagi kartid waxa leedahay walaal gacali guul wacan ayaa leedahay suu qofkii niyad u yeesho oo si socdo ama horumar u sii sameeyo insha Allah walaalkaas before soo aragtay after saan ayuu yahay ogowna wuxuu isticmaalay 3 caag waaye kii saddexaad ayaa hadda ka dhamaan rabo kii afraad ayuu bilaabayaa ayuu bilaabayaa walaalkan waxaan leenahay guul wacan ayaan leenahay oo dhiirigelin ayaa u tahay barbaarta gaashaawan meel walba ay joogto waan ku dayasho ayaa mudan tahay waxyaalo badanna waxaa tiri la wadaag barbaarta gaashaawan sida in ay iska ilaaliyaan waxyaalaha dhibka u keeni kara ama ka kala dhimi karo New Year Resolution isticmaalkeeda waxyaalahaas oo kamid ay yihiin in qofka uu shaambooyin kala isticmaalin asaga wuxuu yiri isbuucii ugu horeeyay baby shaambadan ma isticmaali jirin shaamba caadi aan isticmaali jirin yiri kadib ayaan ogaaday ama programyadan Bidar Caawiye helay kadib ayaan bilaabay inaan isticmaalo baby shaambo isbuucii ugu horeeyay baasha waa ii socon weysay insha Allah kaga digi walaalaha inay baby shaamba waxaan ahayn ku isticmaalaan macnaha waxa laga wadaa shaambooyin ku qubaysanaysid
qofka markuu in muddo wadana suu cadaanka uga baxo saliid uu marsan karaa saliidaha harbalka ama saliidaha dabiiciga ah oo kiimikada aan lahayn uu marsan karaa qofka hadduu cadaanka zaid uu noqdo laakiin ogow cadaanka waxaa kaga baabi'in kartaa markaa isticmaasho kawa soo qabo saa u shalaysato kale aad dhamayn rabto new hair lotion kaga baabi'in kartaa cadaanka dhowr mar dadka waa la wadaagay sida ay uga baabi'in karaan cadaanka ama waxay ka qaylinayaan agoolka ah new hair lotion say uga baabi'inaysaa waxaa uga baabi'inaysaa new hair lotion markaad soo dhamaysato waxaaga aad shalaysato kale saliidda soo qabsato kale oo new hair lotion ay isticmaalay sidoo kale kawa soo qabo saliidda aad isticmaashay markaad saliidda isticmaasho kale oo madaxa aad ku buufiso oo madaxii aad masaajeyso hadalka u fiirso madaxii waa masaajeysay markaad masaajeysay oo aad dhamayso masaajadaada waxaaga saliidda ku buufi madaxa dhamay madaxa markaa madaxii dhamaysato oo uu kuu dhamaado buufintii iyo insha allah masaajki iyo shalladii dhowr qofna waa la wadaagay dhowr qofna waa u sheegay mar walbana gacanta aad ku marsanaysa saliid maana gacanta kale caaga ayay kaa taaban hadda gacanteeda saliid ayay leedahay hadday caaga daawato caaga waxa ku dhacayo isbedelo xataa waxaa laga yaabaa inuu caaga ii dhiiqsami waayo ama ii shaqayn waayo caaga wuu diismayaa saliidda marka gacantaada le caaga ku qabato caaga wuu diismayaa dadka qaarkood way ka argagaxaan waxbaa ka argagixin wax dhaco waaye waana loogu talagalay waxaan rabaa inaan kala taliyo walaalaha qaarkood oo dhahaya saliidda caaga waa furnaa fadlan ha furin waa adigoo cabitaan furay cabitaan acid lahaa furay fadlan marka ha furin saliidda afkeeda ha furin haddaa furto waxaa ka baxaayo waxyaalihii loogu talagalay nafaqada ama nafaqeynta tinta ayaa ka baxaya marka fadlan waxaan kaaga digayaa ama aan kaala talinayaa saliidda inaada furin dad badan ayaa furo oo leeriyo marka fadlan insha allah intaan rabaa inaan ku dhaho marka hadda intaan samayso oo kale qofka uu dhameeyo oo kale muxuu sameynaa marka cadaanka saa uga baabi'iyay madaxii waa dhameeyey madaxaan ku shubaya marka ilaan waa dhameeyey inaan maxaan rabaa magaalada ama shaqo tago waa ujeedaa shaladama ma jirto iyo masaajiyandama ma jirto xoogaa dambaa ku celinaysa oo markaa dhamaysato waaye wax walba ay ku dhamaadaan aa ku celinaysaa intaas marka waxaan rabaa inaan kusoo qaato barnaamijka maadaama la galay qaboobihii dadka qurbaha joogo qorax lama arkaayo dadka afrika jooga jaanis ka haystaan ama noga jaanis fiican yihiin waxay tahay qoraxda ayay arkayaan laakiin annaga qorax waxaa laga yaabaa in aan arkin 2 bilood 3 bilood hadday qorax soo baxdana qoraxda ay noqoto qorax faynuus oo kale insha allah qorax yaroo faynuus camal ay noqotay ani waa la qabsaday shalada hala yaabin mar walba markaan dhuumeeyo ama dhamaysto shalada waa sii mariyaa marka maadaama qoraxdii faynuusta camal ay soo socoto ama ay soo baxday la gaaro xilligeedii jawigiina uu yahay jawi iska mar walba qabow ama roob inuu da-ayo kale waa xilliga barafkaan galnay ama jiilaalka aan galnay insha allah waxaan kaala talinaya ama kaaga digayaa in aad raasatid kaniiniga fitamiin d-ga laho kaniiniga fitamiin d-ga laho wuxuu ku gelayaa booska qoraxda dadka jaaniska u hel inay qorax haystaan maalintii waxaa kaa badan 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo oo qoraxda isku dhigto 15 daqiiqo ma badno oo qoraxda aad fadhiisato 15kaas daqiiqo wuxuu u dhigmaa 5 bilood oo aniga aan qorax ku helo Yurub 15 daqiiqo qoraxda fadhiisata adiga mar walba jaanis ayaa haysataa meel qoraxda ayaa joogta ka faa'iideyso jaaniskaaga iyo qoraxdaada kaga dig walaalaha kula midka ah isticmaalka shaambooyinka iyo waxyaalaha dhibka u keenayo kaga dig walaalaha kale ama aad taqaanid ama bidaarta ama saxaanyaha leh insha allah barnaamijku wuu sii socon doonaa wixii akhbaar ama fariin ah u baahantaa in lagaa caawiyo waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka whatsappka oo shashada ku aragtay insha allah la soco barnaamijka mar walbo meel walba ay joogto waxaan rabaa inaan dhalinyarada meel walba ay joogaan in aan ka dhiirigeliyo in ay isdhigan ee wadaan guushana way dhowdahay waxaan leeyahay maalinta ku wacnaatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi